caawa halkan ku shiray waxaan leenahay cid walbo dhibaatooyinka maanta beesha dhexdeeda ka taagan quseeya ama dhibkaas qayb ku leh walaalayaal waxaan idin leeyahay dhibka inaad joojisaan baa idinka codsanaynaa walaalayaal dagaal dheef kuma jirto waa la wada joogayaa waa la wada noolaanayaa waa la wada dhashay meel aynu u kala socono ma jirto waxaan u soo jeedinaynaa dhammaan beelweynta laysaa dal iyo dibad meel walbo ay ku sugan yihiin cid walbo caqligeeda shaqaynayo wax garanaysa danqasho beeshan ku jirto inay gacan ka geysato sidii beeshan howsheedii loo xasilin lahaa bismillaahi raxmaani raxiim caawa ay tahay 31 bisha 8 2024 war murtiyeed plus baak nabadeed waxaa caawa shir jaraa'id isugu yimid magaalada Nairobi caasimadda dalka Kenya dhammaan waxgaradka ugaasiyada ganacsatada dhalinyarada hablaha beelweynta laysaan ee degta dalka Kenya gaar ahaan Nairobi kulankaas oo lagu gorfeeyay dhibaatooyinka xilligan haysta beesha laysaan waxaana ka soo baxay qodobadan soo socda kow waxgaradka dhalinyarada gabdhaha ganacsatada odayaasha ugaasiyada beesha laysaan caawa halkan isugu timid waxay ka xun yihiin marna inay raali ka ahayn ay ka qoomameynayaan ay ka xun yihiin ay cod dheer ku sheegayaan dhibaatooyinka hadda haysta beelweynta laysaan number 2 odayaashii ganacsatada dhalinyarada hablaha beelweynta laysaan caawa halkan ku shiray waxaan leenahay cid walbo dhibaatooyinka maanta beesha dhexdeeda ka taagan quseeya ama dhibkaas qayb ku leh walaalayaal waxaan idin leeyahay dhibka inaad joojisaan baa idinka codsanaynaa qodobka saddexaad waxaan ugu baaqaynaa walaalayaal dagaal dheef kuma jirto waa la wada joogayaa waa la wada noolaanayaa waa la wada dhashay meel aynu u kala socono ma jirto please waxaynu codsanaynaa dadka hubka isku haysta inay hubka dhulka dhigaan miiska wada hadalkana isugu yimaadaan number 4 waxaan u soo jeedinaynaa dhammaan beelweynta laysaa dal iyo dibad meel walbo ay ku sugan yihiin cid walbo caqligeeda shaqaynayo wax garanaysa danqasho beeshan ku jirto inay gacan ka geysato sidii beeshan howsheedii loo xasilin lahaa sidoo kale qodobka u dambeeya ama qodobka shanaad waxaan u soo jeedinaynaa dhammaan dadka wax og ee deegaankii jooga meeshuu dhibku ka taagan yahay inay gacan ka geystaan aysanna daawanin dhibaatada jirta waxaan si gaara baaqan u quseeyaa dhibaatooyinka maanta ka taagan degmada Bardaale ee gobolka Baay walaalaha hubka isku haysta isdilaya islaynaya isdaawacaya iyo maatada dusheedii lagu dagaalamayo waxaan leenahay walaalayaal hubka dhiga oo miiska wada hadalkiisa ugu yimaada kala guuri mayno kala maarmi mayno meel aynu kala aadi mayno soo waxaan idinka codsanaynaa inaad miiska wada hadalka ku soo laabataan caqligana uu shaqeeyo miirkana uu soo digo ugu dambayn waxaan ugu baaqaynaa dhammaan dadka siyaasiyiinta ku jira heer federaal heer state iyo siyaasiyiinta beeshan ku metela labada dhinac ee siyaasadda qusayso oo dhan inay dadkan aayahoodii ka taliyaan caqligana uu soo laabto maalinta qiyaama iyagaa su'aal laga weydiin doonaa beeshan dhibaatooyinka maanta haysta iyagaa la doortay iyagaa metelaya iyagaa miiskii garta lagu kala goynayay u jooga waxaan idinku baaqaynaa in codkayga idiin soo gaari doonan aan rajaynayno inaad beeshan dhibaatooyinka haysta aad u kala dabqaataan aad heshiis ku dhamaystaan waxaan ilaahay uga baryaynaa dhammaan beelweynta laysaan meel walbo daafa caalamka ay kala joogto in caqligoodii iyo garaadkoodii iyo meel walbo caqli kasto qof kasto ku jiro in caqligu uu shaqeeyo beerkoodan ilaahay isku mariyo boog aan naf lahayn waxaan ilaahay ugu baaqaynaa in caqligii saliimka ilaahay u soo celiyo beelweynta laysaan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad aan leenahay siyaasiyiinta dhinac walba ku jira ee dadkan metela quseeya in dadkan dhexdoodii la galo lagana shaqeeyo dantoodii aayahoodii intaad wada joogtaan wabilaahi tawfiiq السلام عليكم ورحمة الله وبركاته